السلام عليكم صاحب بيال كسر وهذا ما أنت أيوه ورك هو وين أفلام هندية أريمه بولود كي channel كينا قدر فنيشون كسر قادر إنه ورك قدام بيه هندية يلا يابك الدنيا ذا يلا عضوي خير عالم كوكو ميسانو أفلام هندية أيانو ما أنت وحنا كسر قادر دونا أكتر كعان كهريتيك روشن أو هذا كم النقضي dadka dunida lagu hadalhaynta badan yahay runtii shaki la'aan waa mid kamid ah aktarada ugu fiican Bollywoodka waliba hadda wuxuu ku darsaday mid kale weyn saaxiibada channelka ku cusub tahay fadlan noo subscribe gareey channelkeena si aad kugu soo gudbino dhacdooyin badan oo dunida ka dhacaya oo wada madadaala يا هريتيك روشن وركيس ووينادي هريتيك روشن وركيس وويناديو مستر بوني أكشي كومار إيو معنا سلمان غان إيو شاروغان إيو ريرغان مال إسكندك هريتيك وركيس بريان ووينادي نينكا كانوا هذا كان فيلم كي سوبر سيا فيلم كي سوبر صدن يا وكوتشلي نين بروفيسور إيو منين حسابيان حساب تكرون أما أد أقول دهريا أيا وحا لقول دري إنه كمد يهي شنطن dunidan aan ku dulnoolnahay ugu quruxda badan sanadka hadda aan ku gudu jirnay 2019ka Heritic waxa lagu daray inuu qayb ka yahay ragga dunida ugu quruxda badan waqtigan aan joogno adduunyada laba sanadka 2019ku ragga ugu quruxda badan ayuu hogaaminayaa shak kuma jirin inuu asagu yahay mid kamid ah aktarada ugu fiican Bollywoodka marka la fiiriyo bandhigiisa filimada haddana dheeshu marka lagu daro asagu baba kow ka ahabo haddaanu ba ahayn number 1 ku ugu fiican buu ku jiraa haddaba ninka kan ayaa qayb ka noqday todobaadkan shanta nin ee adduunyada ugu quruxda badan qiimeyntii ugu dambeysay ee la sameeyay bisha hadda aan ku gudi jirnay Agosto 2019ku qiimeyntii ugu dambeeyay ee la sameeyay Heritic waxa uu ka mid noqday ama loo aqoonsaday inuu ka mid yahay shan nin oo waqtigan adduunyada ugu quruxda badan qurux marka la dhaho aan lagu gaarinba يا هذا أكتر كانوا أيا وحو كان فيلم كي جدا بيهدا وكاني كاس أو لعجو بدن أو أدو بدن سو حريني وحو يهاي فيلم كسوبر صدنا دغالب بدن هذا في كسو حريني وحنا هريتيك روشن هذا اللي جوا إن أو كانوا فيلم كله أو وين وحنا أول وده أكتر كإسقوات كأوتشعل لجوا مجعبو تايجر شريف وحنا ليه جيك شريفه أكتر كعان كجيك شريف ويل كيس تايجر أسوي نسيت هريتيك روشن ليش وود خطر بدنيه لكن هريتيك مركل لجها الله أسقى تايجر وكله أنا هريتيك وكتم بيه وكله يو هريتيك ونيكو كود ده تايجر يعني شريف ويل كجيك شريف عليه تايجر شريف يا وحقات وجعليه هاي أما وكود ده أو جيس هريتيك روشن markii Heritic hadda soo ka soo qubaystay filimkii Super Sodon ayaa haddana la soo keeni doona film weyn oo uu la keeni doono aktar kan waanka Tiger Sharif waxana filimkan isaga iyo Tiger Sharif la wadaaga gabadha lagu magacaabo Vani Kaburo filimkan uu hadda isaga iyo Tiger Sharif ay soo wadaan waxa uu soo bixi doona 2 October 2019 hadii aan dib u milicsado sheekadii ku aadaneed qisada tan ku aadan in ninka kan lagu daray dadka adduunyada ugu quruxda badan oo yaa qiimeyntan qaybta ka noqday mar shan nin ayaa waqtigan dunida ugu quruxda badan oo ku jira ninkan Hindiyaanka ah ee Bollywoodka jira Heritic Roshan ayaa qayb ka noqday shantan nin dunida ugu quruxda badan oo waxa ragga ugu quruxda badan dunida hadda kamid ah nin yiraahdo Chris Evans ayaa ragga ugu quruxda badan dunida lagu daray hadda waa ninka hadda idin muuqda sidoo kale David Beckham ayaa oo nin ciyaartooy ah ayaa kamid ah ninka labaad ee dunida ugu quruxda badan ah David Beckham waa nin kubadda cagta ciyaare aad u qurux badan weeyaane nin la yiraahdo Robert Pattinson ayaa isna ah ninka saddexaad ee dunida ugu quruxda badan sidoo kale Omar Barkan Algala ayaa isna ah nin kale oo dunida ugu quruxda badan oo afartaas oo lagu daray Heritic Roshan ayaa waxa ay noqdeen shantan nin ee dunida ugu quruxda badan sanadka 2019 qiimeyntii ugu dambeeyay la sameeyay bishan Agosto Heritic markuu wuxuu qayb ka noqday shantan nin ee ugu quruxda badan dunida aan ku dulnoolahay marka Heritic warkiisa oo weynaaday oo kaliya bariyaan kuma koobna in uu filimada uu keenay ay yihiin filimo la cajab dhaco filimo aad loo jeclaysto marka laga tago filimadiisa haddana Heritic magaciisa wuxuu ku faafayaa dunida waxa uu maalinleed xataa ku jiray ragga indhaha ugu quruxda badan indhaha marka laga hadlayna rag ugu quruxda badan maalinleed ku jiray indhihiisa waxa ay u sameeyeen qaabka dadka kale oo Heritic yaa wax u muuqdaan in sida balilka oo kale ay yihiin maalinleed indhihiisa kaliya ayaa wuxuu kaga mid noqday inuu yahay toorayaasha ugu caansan dadka ugu caansan dunida indhuhu quruxda badan ayaa lagu darin karo haddana wuxuu qayb ka noqday shantan nin ee ugu quruxda badan dunida marka Heritic Roshan aktar wargeysadu Hindi oo dhan baa ku faanaya in aktarkooda weyn ama ninka wadankooda ka soo jeeda Heritic Roshan uu qayb ka yahay dadka waqtigan ugu quruxda badan dunida liiska kan uu la wadaagay rag waaweyn uu ku jiray Chris Evans iyo David Beckham iyo kuwa kalaba
waan arki doonaa Heritic Roshan iyo Tiger Sharif filimkooda xiga ee soo aadan waxaana filimkaas la sheegay inuu soo bixi doono 2 bisha October sanadkan ku guda jirno ee 2019 Heritic iyo Tiger oo films la wada walla meesh film baa yaala waa laba nin oo wada murqaaniya dhisan dheeshana ku fiican waxay ahaan lahayd kolba ama director ku fikiraya labadan kolba hees buu sameyn doono labadu way ka soo muuqan doonaan maxaa yeelay waa laba nin oo dheesha ku qatar badan inkastoo Heritic uu oday kaaba weyn yahay oo kabtiisa ay tahay haddana Tiger waa nin kale oo qatar badan oo kolba odag agtiisa kuma ordi doonaan u maleynaya Tiger Sharif waa macalinkiisu ninka waa taageersan yahay